maayarka magaalada Boorama Saleebaan Xasan Xadi ma qarsan markan inuu culays ba'an ka haysto dawladda gobolka iyo tan degmada dhismayaashii ay dawladdu lahayd ee dad badan oo shacab ah gacanta u galay isla markaana kulmilmay hantidooda gaarka arrintan maayarku waxa uu kala qalay si cad waxana uu digniin ku bixiyay in cid walba oo guri dawladeed ku jirta loo iman doono bedelkeedana meel kale loo qorsheeyay guryaha dawladda ku jira laga saaro si ay dawladdu ugu madax banaanto guryaheega runtii sida ugu weyn ee gobolka Istaama degmada waxa weey guriyihii dawladda total waa lagu jiraa dawladdu meel ay ku shaqaysaa ma jirto xafiisyadoodii ba xaafada marka waxaan ugu talagalnay dadkaasi inay ka mid noqdaan markay ugu yartahay 50% inay noqdaan dadka la siinayo guryaha la dhisi doonaa hadii la yiraahdo aad iyo aad wad maasantiin qof kasta oo guri dawladeed ku jiray ama dhul banaan oo dawladdu leedahay haystay war ha ku talagalo in loo soo socdo oo talaabo hadalladan waxa ay ka soo yeedheen maayarka Boorama waqti uu ku guda jiray bilowga dhismaha guriga martida ee gobolka Awdal oo dhismihiisu ka bilaabmay magaalada Boorama Cabdalla Ali Yusuf shabakada wararka Aynaba News Boorama